بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موضوعا كان كصابسيسن مهمة أما مدنانتا أي leedahay luqada hooyo marka loo eego barbaarinta caruurta. mala waa mas'alo ku fiicneed qof luqawiye inuu ka hadlo, linguistic qof ah inuu ka hadlo, laakiin walaaladu xaggaygu may soo riixeen inaan tilmaamo. waxaan isku dayi doonaa inaan waxoogaa ka tilmaamo. marka ugu horeysa afka waxa la yiraahdo waa nicma min an-ni'am al-kubra, waa nimco weyn oo ka mid ah nicmooyinka waaweyn ee Ilaahay bixiyo subxaanahu wa ta'ala. waa shay quraanka Ilaahayna ugu tilmaamayo in lagu karaameeyay aadanaha. sida ogeed baa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraanka wuxuu leeyahay wa'allama aadama al-asmaa'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. آدم markuu rabbi rabay inuu muujiyo awoodiisa iyo maqdiradiisa, oo malaa'igtu markay warka ka keentay qadiyadiisii, ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa'allama aadama al-asmaa'a kullaha, magacyada dhammaantood. الأسماء وأصل اللغات، يعني اللغة مقعية كبلابنتا وحكى لو اسكو حد. آدم بالله بري مقعية دمان تود دبتنا ملائكة اللي يري فضلوا كورما الرماها كان مركز عدى يستنين أنا يو قرنين. إذا وحيابي إلهي آدم كرامي لغة كميدة. وحكى له إلهي القرآن كي نقول المام يلغض وين يتهي من قلت شيء شاء لنمعين كوكو قلت شيء نيينيت. ورب سبحانه وتعالى وحلي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. خلق الإنسان علمه البيان. صدح شيء بقى إلهي هل كانوا قوم النشيكتي أدنها مدوين القرآن كبري كلا بعدنا وخلق جودة وإيجاد جودة. خلقكم من نطفة إن إلهينا جاء أبوري ونعمة. ثالث الأمر وعلمه البيان فإذا هو خصيم مبين بإلهي آيات كلا نكت المامي. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. مبين من أبانا أدينك كأنه كي وحدين كريي. إلهي وحلي آدنه وحنبري البيان waxa naftiisa dareenkiisa ku jira inuu cabiri karo, inuu dadka inta kale communication xidhiidh la samayn karo. quraanka Ilaahay markuu uu sheeganaya aadanaha galada waxa kamida wuxuu leeyahay alam naj'al lahu 'aynayni wa lisaanan wa shafatayn. bini aadamka miyaanan u yeelin baa Ilaahay yidhi laba indhood oo wax ku arko iyo carab iyo laba dibnood, yacni awoodda hadalka miyaan la siinin. سادراديد با إنسانك من أغلى صفاته اللي قصف أيه وحكمده إنه يا حيوان ناطق بيد هذا حكي قد سيء نولها كله وهيدا هذا نسوى حيوان ناطق وامد هضلية نطق أما هذا الهضوم ماشي ما دنا هذا الكفكرة بكرشة وحكى له إلهي القرآن كأنه قلت الماما يا هذا الكو كلا قد سنة إلهي نسيء إنه آية من آيات الله هي ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. إلهي وحلي آيات كيسا وحكمده عرك يدلك إنه أبوري آيات كواوين إن ربي بكمت وحكى له آيات كواوين سيدا عرك يدلك وكلا كمده اختلاف ألسنتكم بإلهي إليه. عربدينا ويسويداريي more languages
هذا اللذن ترضى بدن لي حوالي 7,000 iyo dheeraad bay gaadhsiinayaan dadyowga linguistics-ka ka warrama qaarkoodna ilaa 5,000 waa hadba sida loo tiriyo oo lahjaadka qaarkood ma luqooyin baa mise waa hal luqo unoo lahjaadkeed weeyaan min 5,000 ilaa 7,000 tiro u dhaxaysa ayay ku tilmaamaan ilaahay markaa wuxuu leeyahay aayaadka waaweyn ee ilaahay waxaa ka mid ah wakhtilaafu alsinatikum waalwaanikum ina fii dalika laaaayaatin lilcaalimiin arrinkaasi waxaa aayadi unugu sugan tahay baa ilaahay leeyahy kuwa aqoonta leh waayo aqoontu waa waxa ku garadsiinaya qiimaha hadalku uu leeyahy cid afkeeda nacday haddaad aragto waa aqoon darro ilaahayna wuxuu leeyahy ikhtilaafu lalsin waxaa lagu garanayaa qiimaha uu leeyahy oo uu aayad ku yahay dadka caalimiinta ah unbuu u yahayn baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala haddaba afku waa waxa bini aadamku ku wada xidhiidho afku waa waxa communication waa waxa xidhiidhka bini aadamku uu ku dhaco haddii aan afka lala yahay macnaheedu wuxuu noqon lahaa qof wal oo bini aadamiba inuu ku jiro xabsi infiraadiya sal keligii inuu ku jiro jeelasha marka la isku xidho jeelka kuwa sii rabsho xabsi kaloo lagu sii xidhaa jiro jeelka ku sii guda yaalla jeelka gudihiisu macnihiisu waxa weeyaan dadweynihii baa lagaa soo xidha laakiin haddaad rabsho sii samaysa zanzaanad baa lagu sii geynayaa sheelada kay soomaalidu odhan jirtay that means waa sal yar maxaabiistii kale xataa lagaa sii xidhaya waayaan xabsiyadii soomaaliya joognay baa waxaan arki jirnay dad intay sal ku jiraan markuu cid la hadlo waayo keligii qaylinaya keligii isla qaylinaya haddaad weydo cidaad communication la samayso cidaad la xidhiidha cidaad la hadasho waa nooc min alxabs waa qof xabsi ku jira hadalku waa waxa qofka bini aadamka ay fikraddiisa iyo waxa madaxiisa ka guuxaya dareenkiisa xanuun iyo farxadkay tahayba wuxuu dareemayo waa wuxuu ku dhiibayo waxaa garan kara luqada qiimaheeda qofka abkamka ah dadkan afka iyo dhagaala qof bini aadam oo ku hor joogo wuxuu dareemaya aan odhan karin waxa madaxiisa ka guuxaya aan sheegi karin siduu wax u arko aan kuu caddayn karin afkaar iyo mashaacir iyo waxba toona aan isweydaarsan karin afku waa weelka sida xadaaradihii ummadda iyo dhaqamadoodii dadkii dhintay waxa qura uu inagu soo gaadhayaa waa afkii la qoray afku intaa waxa dheere uu leeyahay mutca fanniya waxyaabaa lagu raaxaysta buu ka mid yahay gabayadan iyo suugaantan iyo tacaabirtan quruxda badan leh mutca fanniya bay leeyihin haddaba haddii afku guud ahaan waxaasoo dhan wadaago af kastood ku hadasho alfalaasafa waalmufakiriin waxay tilmaamaan kaalinta qowmiyad kasta ama ummad kasta ama shacab kasta afkeedu uu u leeyahay marka loo eego xagga nolosheeda dhasheeda kobcintiisa ilaalinta qiyamka iyo valueska iyo waxay aaminsan tahay dhammaystiranka shakhsiyaadkooda afku meel adag buu kaga jiraa bay leeyihin walidalik buu wuxuu leeyahay filosofkii la odhan jiray herder almaaniga ahaa luqada ama afka aabbayaashiiyo awowyadu waa khasnadda ay ku jiraan buu leeyahay shacabku wuxuu hanti lahaayoo dhan afku waa khasnad lagu kaydiya buu leeyahay ummad ama shacab wuxuu lahaa ee afkaarah ee caadooyinah ee taariikhah ee falsafad ah ee diinah bale wuxuu leeyahay luqadu waa wadnaha shacabka wadnuhu waa meelaha ugu qaalisan jidhka bini aadamka ee dhiiggoo dhan gaadhsiiya wuxuu leeyahay afku waa ruuxda ummade ay leedahay isu gudbiso filosof kale oo fikhta la yidhaahdo ayaa isna wuxuu leeyahay afku
وحرق اسكو حدا قومية ذهب لي ومضح حرق قرى اسكو حداني وقف. ولذلك علماء وحدة اللغة وجامعة رابطة بين هذا ووحى كل مية اسكو حدا بلشو أيو أفكي markaynu afka ka tallowno markaasaynu tagnay afka hooyo hadduu af oo dhami sidaa yahay afka hooye muxuu yihi horta afka hooye waxaa la yidhaahdaa waa afka aan dugsi loo tegin ee guriga laga barto afka hooye maaha mid inta iskuul loo tago buugag lagu soo qoro asliyan qofku afkiisa hooye wuxuu kala kulmaa maxay gurigiisa aabihii iyo hooyadii iyo walaaladii iyo xaafadda uu degan yahay buu kala kulmaa afku waa hantida ummada ay leedahay afkaaga hooyo waa hanti sida waxaad dhaqan aabbayaasha iyo awowyada lahaayeen waa afku waa hantida sida dhaxal iyo hidda wixii adowgaa ka tegey dadkaad ku abtirsanaysay shucuuban wa qabaa'ila baa ilaahay tilmaamay shucuubta aad ka tirsanayd wixii dhaqan iyo hidde iyo aragti ay lahayd afkaaga kuu sida afkaa haddaad weydo macnaheedu waxa weeyaan waxaad weyday heritage-kii tolka shacabkaa wuxuu dhaqan hiddo luqo falsafo afkaar caado lahaa waad luminaysaa afka waxa lagu gudbiyaa bay leeyihiin aqoonta dad leeyahay iyo waayo aragnimadiisa ayuu jiilka faca weyni faca yar ugu gudbiyaa afka hooyo waa waxa isku xidha bulshada keeda weyn iyo keeda yar afku waa xadhiga qura ay wadaagta baynu odhan karnaa ummadda isku aragtida ah waayo afku values ku abuura qiyam ku abuura afku waxa lagu tilmaamaa maadaama uu caynkaa yahay ayaa quruumaha ummadda ka dhaxaysa ama UN-ka waxaan la yidhahaa jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa 2003 waxay soo saartay xeerar cusub oo lagaga hadlayo hiddaha maguuraanka ama ummaduhu hiddaha ay leeyihiin ee lama taabtaanka ah aan maadiga ahayn qaanuunno horaa jiray oo UN-tu lahayd oo ka warramayay heritage-ka bini aadamka dhaxalkii aadanaha oo waa kuwan meelaha daarihii qadiimka ahaa magaalooyinkii gaboobay guryihii gaboobay waxyaabihii cajaa'ib tahay ee ummadii hore ka tageen waa kuwan yidhaahda waa dhaxal aadanuhu wada leeyahay ee ha la ilaaliyo 2003 waa la gudbo waxa la yidhi dhaxalku material qura maaha dhaxalka bini aadamku uu leeyahay waxa ka mid ah bay leeyahay afka sida awgeed waxa la soo saaray qawaaniin cusub oo sheegaya ku baaqaya in la dhowro oo la ilaaliyo dhaxalkiiyo hiddaha aan walxaha ahayn aan materialka ahayn waxaa loo arkay afku inuu yahay agabkiiyo weelka xambaarsan caadooyinkii dhaqamadii hiddihii ummaduhu lahaayeen afka waxaa loo arkay inuu yahay aqoonsiga ama sawraca ama sumadda ama baadisocda dad leeyahay يعني أفكو identity مثلا مسلم بينوني بني آدم بينو مركا قودني مركا لبادا identity إسلامية بينو وضانا لكن مسلمين توا شعوب تربضا مسلمين تدين تيا الوضع عربيد واي كدا حيسا وشعوب ستربضا شعوب تاعد وليبا وحي لهذا بعد الصوع وقارة بعد الصوع اللغة الصوماليات سمد ريركا كودا دحيسا جيلبكو سمد قلو ودلي سمد خولا لوgu dhigo laakiin jilibka furuucdiisa hoose baadi sooc bay si kale leeyihiin wax gaara sumadiina guud marka la arko wax la garanaya geela ama xoolaha reer hebel leeyahay laakiin qoyskiinu inta gaarkee uu siilay baadi sooc wax la yiraahdo gaar ah buu leeyahay oo sumadii oo ka sii hooseysa afku marka haddaynu islaamnimada iyo luqada carbeed iyo diinka iyo intaasi naga dhaxeeya muslim oo dhan baadi sooc gaar ah baynu haddana ka leenahay باكستاني منهن كردي منهن عرب منهن تركي منهن ايشيان منهن ندير منهن وحنا صومالي نمد waa maxay marka
identity-ga ugu weyn ee Soomaalinimadu leedahay waa afka meeshu doona ha deganaado Soomaali Ethiopia degan mid Kenya degan mid Soomaaliya degan mid Djibouti degan mid dabadaha ku firirsan waxa laga yaabaa inaanay inaga dhaxaynin dawlad siyaasiyo weyn oo ina wada xijisay inaanay inaga dhaxaynin laakiin waxa inaga dhaxeeya mid ka xoog badan oo ah dhaqan markaynu ka nimaadna diintii muslimka inaga wada dhaxaysay oo dhan waxa inaga dhaxeeyo gaari waa dhaqan iyo af waa sawrac waa adiga suulka markaad meel saarto wuxuu sheegayaa qofnimadaada marka isha layga qaado ama suulka layga qaado dhammaantiin waan idinka gedisanay bale aabbaha iyo hooyadii baan ka gedisanay qof la yidhaahdo Mustafa oo gaara buu sheegaya laakiin marka la isku keen daro fingerprint-kaynu wadanaa waa luqada Soomaalinimadu fingerprint-ka ay wadataa ee aan dadka kale kaga soocmayo markaas ee baadi soocday markaan muslim diin baan la wadaagaya dhaqan guud iyo luqo guud oo diinta ku qoranta laakiin muslimku waa shucuub ilaahay baana le waja'alnaakum shucuuban wa qabaa'ila waxa la inooga dhigay litacaarafu haddaba shacabka Soomaaliyeed waxa aan wadaagno ee isku kaayahaya raabidka kaliya waa afka qofka afka waaya wuu ka finiinay raabidadii aan ku jiray waa laga yaabaa inuu sida Bagastaanta ila wadaaga diinta ama sida Kurdida ama Turkida laakiin haddaad afka weydo macnaheedu waxa weeyaan raabitadii koowaad ee Soomaalinimada waad ka baxday waad weyday wuxuu Soomaali ku ahaa Soomaali waa abtirsiin Soomaali kuma aha abtirsiintu aadam bay wada gashaa reer nabi aadam oo dhan waxa rasmiga ah reer nabi aadam inta kale kaga soocannahay waa afka sida awgeed ayaa United Nations wuxuu arkay afafka in loo aqoonsado inuu yahay identity-ga ummad leedahay sida awgeedna uu mudan yahay in la ilaaliyo oo 2003 qaanuunkay soo saareen afka waxa loo arkaa inuu yahay taariikhda bulsheed iyo xusuusta ummadeed collective memory-ga ummad leedahay waxa uu ku kaydsan yahay taariikh kasta ummad leedahay afkeeda haya tusaale mahmaha af Soomaaligu mahmahdu qiso kaamil bay ka tarjumaysaa laakiin saddex eray baa la oranayaa mahmahda laga soo qaatay saddexda eray qofka Soomaaliga markuu garta mahmahda macnaheedu waxa weeyaan qiso dhan oo buug lagu qori lahaa baa loogu soo koobay verbal society mar haddaynu ahayn inuu ku qaato one sentence kaasi novel aad akhri lahayd buu qisadeed ka metelaya mahmaha Soomaaliyeed qaarkood waa sheeko dheer dhacdooyin dheer oo laga warramay adduuni khatal buu yidhi aadan galeydh markaad tidhaahdo aadan galeydh iyo qisadiisa iyo qabaalka iyo waxa reeruhu isku dileen iyo xoolaha iyo dadka dhintay waa qiso dheer oo sheeko Soomaaliyeed ka mid ah taariikhdii Soomaaliyeed ka mid ah laakiin erayga adduuni khatal markaad maqasho qiso dhan baad xasuusanaysaa qiso kaamila ayaa adduuni khatal ku jirta qiso kaamilaba hebel caleentiisi baa caddaatay haddaan ku idhaahdo waa fairy tale Soomaaliya iska leedahay geed baa dayaxa ku yaala geed goba caleemuu leeyay qofku markuu dhimanayo 40 casho ka hor bay caleentu soo dhacdaa bay Soomaalidu tiraahdaa markay caddaato ba naftu ka baxaysaa bay dhahaan waa sheeko Soomaali dhan haddaan markaa idhaahdo ninka hebel caleentiisi baa caddaatay qiso dhan baan idin sheegay sheeko dhan oo Soomaaliya ay lahayd macnaheedu waxa weeyaan mahmaahuhu in Soomaaliyeed ba reeraan doonaya roob may ugu eriyay yidhi يعني وقصة كاملة صوماليات أيو سنتنس كده ولذلك واحد هذا تاريخها ومضه دول كلاجا أوروريو ومضى تاريخ ده وكتشره هي حصوص تدنا أي وداكته وأفكاره هذا ومضى أفكار لوميسه معنى هذا وحويان تاريخ لم بدلوا منسه ولي بالصومالي مركاته هاي أديك وحبك ومقرأ taariikhdii عبد الله حسن oo dhan gabay baa laga hayaa in عبد الله حسن inaan xasuusan karno waxa keenay gabayadu ka tagay dad badan oo agtiisa la noolaayo boqortooyooyin Soomaaliyeed ah waxba laga ma hayo boqortooyooyin dhan oo Soomaaliyeed oo talin jiray
oo dhul badan ka talin jiray baan waxba laga hayn in Cabdalla Xasanna sidii uu shalay noolaaba la wada hayaa maxaa keenay waxa keenay sumad iyo sawrac buu yeelay taariikhdiisii gabay buu ku suntay Soomaaliduna gabaygay qabataa taariikhda Soomaaliyeed ee qabaa'ilkeedii iyo istilkeedii iyo kala guursigeedii iyo wada noolaanshiyaheedii iyo wada degaankeedii meesha laga daraaseeyay ugu badani waa waxay gabay isu tirisay gabay kasto Soomaaliyeed markaan daraasaynayo macnaheedu waxa weeyaan taariikh umad lahayd qayb ka mid aan daraasaynaya taariikh dad laha oo dhul deganaa oo qaab u fakarayay oo qaab u dhaqmayo qaab u noolaa ayaan daraasaynaya markaan adabkooda daraasaynayo adab اللغة الصومالية sida awgeed waxay leeyihiin afku waa aqoonsiga ama sumadda ama baadi socda ama sawraca dad leeyahay waa waxa lagu gartay lagu tilmaamsado ayuu ka mid yahay waxay leeyahay afku marka uu heerka joogo afku marka uu heerka joogo haddaad ka go'do halku gabyaagi Soomaaliyeed ka lahaa gunta lagama jaro geed haduu ku gaboodiyahay buu yiri geedka aad harsanaysa haddaad gunta ka goyso de waad hadwaayaysa afkaad dhaqan hidde taariikh dad nolol ummad dhan ku ahaa haddaad goyso waa nin geedku harsanayay gooyay qof geedku harsanayay gooyay ayuu la mid yahay United Nations markaa waxay u arkeen UNESCO waxay soo saartay 22 February inay dunidu u ictiraafto maalinta afafka loo dabaaldego maalinta afafka loo dabaaldego afka hooyo cid waliba maalin ay xusto ayay iyagu ka dhigeen waxaanay warbixintoodu reportka United Nations ku soo saaray 2013 waxay ku adkeeyeen kuna tilmaameen inuu lagama maarmaan yahay afka hooyo lagu isticmaalo guriga iyo dugsiga bay yiraahdeen waa report United Nations soo saaray waxay leeyihiin dadka waxa lagama maarmaan u ah oo lagu adkeynaya inay afkooda hooyo u isticmaalaan guriga inaan afka lagaga hadal hadda United Nations bay kula talinaya gurigiina inaydan af kale kaga hadal iyo dugsiga caruurtu dhigato inaan af kale loogu dhigin reer galbeedkuna maadaama waayadan dambe ay soo socoto oo soo tiro badanayso reer galbeedku inay noqdeen dad multicultural dad dhaqame iyo hiddo badan leh qawaaniinta wadanadu ay dejisteen in badan oo ka mid ah dadka nuqaada ah dadka xeel dheerayaasha ah waxay u arkayaan inay tashiir inay sameynayso assimilation inay sameynayso in la milo hadaba aqoon-yahanadooda badh ka mid ah waxay arkaan inaynu qofka mille waxa ka faa'iido badan bay leeyihiin oo qofkaasi kaga waxtar badan yahay inaynu afkiisa iyo dhaqankiisana u ilaalino keenana barrow second language u noqdo sida awgeed ayaa reer galbeedka dhexdiisa waxa soo koray aragtiyo cusub oo aqoon-yahanadooda badhaysidaan oo ay ku tilmaamayaan barashada afka hooyo uu qofku baranayo waxay fudaydisaa afka labaad barashadiisa bay leeyihiin yacni ilmaha inaad afkiisa hore ka tirto oo mid cusub u dhigto waxa ka fudud bay tilmaamayaan hadduu afkiisa hore si fiican u barto ka labaad si fudud buu baranayaa bay waa wasiilo fududaysa bay leeyihiin inuu afka labaad baran karo taasa waxay abuurtay markaa nadariyaad tarbawiya iyo daraasaad cilmiya cusub inay soo baxaan siiba markii ay bilaabantay bulshooyinkan multiculturalka ee isdhex galay dawladaha qaarba meel bay istaageen dawladaha qaarkood waxay u arkeen in loo ogolaado afafkooda inay wax ku dhigan karaan meelaha qaarkood waxa loo arkay inuu noqdo mushmal language ama mother tongue luqo lagu dhigo iskuulada oo qofka groupkiisku kooxaba loo dhigo si kasta ha u eegaan isku meel policy-ga reer galbeedku ma wada joogo isku sina uma wada arkayo laakiin waxay leeyihiin waxa muhiim ah oo meesha ka muuqda marka la isku soo daro
qofka integrationkiisu wuxuu fiicnaanayaa bay leeyihin markuu luqadiisa hooyo si fiican uu garanayo luqadaada hooyo inaad si fiican u garataa waxay u baahan tahay waxyaabo buxuus badan baa masaladaa laga sameeyey laakiin waan iska soo koobsanaya maalan Canada oo ka mid ah meelaha labada luqo leh buxuus gobolkan Quebec iyo lamida lagu sameeyey ama duwalka qaarkood buxuus ay sameeyeen waxay ku tilmaamayaan in badan markii la daraaseeyay in la dareemay ilmaha yar ee afkiisa laga masaxay loo dhigay afka wadanka inuu ka fiican yahay xataa tacliimta caadiga kaga fiican yahay inanka afkiisana sugay ka kalena u dhigtay maxay as a second language loo baray haddaba afku inaynu ilaalinaa aan iska soo dhaafa daraasaadkoodaas afku inaynu ilaalinaa muxuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay dhowr shay ugu horreyn wuxuu u baahan yahay qadarin iyo qiimaynta inaynu fahamno waxaad ilaashataa markuu qiimo kula leeyahay yani xaashida tan ilaalin maayo waayo wax yar oo dhididka la iskaga biyaama wax la iskaga tirtiro aan qiimo badan lahayn baan u arkaa laakiin xaashida tan leega lacagta ah walladka meel aan hayn iyada ku ridi maayo waa laba xaashiyood midna walladkaan ku ridaya waan hubinayaa inaan si fiican uga adkeeyey €100 midna saas intaan idhaahdaa baan halkaa ku tuuraya labaduba waa waraaq maxaase u dhaxeeya value bay kala yeesheen bulshada dhexdeeday waxay ku kala leeyihiin maxay value af in la ilaaliyo waxa ka horeysa in qiimihiisa la fahmo inuu dadku garto waxa kan inuu qiimo ugu fadhiyo shay qiimo agtooda kale inuu yahay dadka badhba u haysta afafka qaarna inay cilmiyiin afafka qaarna inaanay cilmi hayn waa beenaha ugu waaweyn ee dunida la sheego afku waa communication af cilmiye ma jiro cilmi gaar af sidaa ma jiro afku waa communication maadaama uu communication yahay afku waa waxa cilmigana lagu qoro jahligana lagu qoro afku waa agab la adeegsado waa qalab la adeegsado oo haddii la rabo jaahilnimo iyo aqoon darraa loo adeegsadaa haddii la rabana cilmi iyo aqoon baa loo adeegsadaa sidaa awgeed bay waxay yidhaahdaan ummad waliba oo dunidan horu martay afkeeday ku horu martay bay yidhaahdaan daraase lagu sameeyey bay yidhaahdaan 500 oo jaamacadood ee dunida ugu sarreeya oo 35 dowladood ku yaalla waa 500 ee jaamacadood ee dunida ugu sarreeya oo 35 dowladood ku yaalla jaamacad waliba luqatil ummi bay wax ku dhigtay bay yidhaahdeen afkii dalkooday wax ku dhigeen idan in jaamacaddu horu marto ama cilmigu horu maro waxay ku xidhantahay dadka afka leh ee af ingiriisigu sidiisa cilmi uma aha laakiin afka marka cilmiga lagu dhigo wuu koraayo kobcaa wuu bataayo biira wuu bararaayo xoogaysta maxaan saa u leenahay waxa ku soo kordhaya the terminology oo dhan baa luqa noqonaya مثلا terminology waa eray bixin مثلا macallimiintii tarjumay afkii Soomaaliga way kobciyeen af Soomaaliga weeyaan 3 group baan u rumaysanahay anigu inay af Soomaaliga wax weyn tareen marka laga yimaado dadka Soomaaliyeed ee caadiga ku hadlay groupka koowaad ee aan u arko in af Soomaaliga ballaadhiyeen oo wax weyn tareen waa culimadii hore muslimiinta ee Soomaaliyeed Ilaahay uu naxariisto culimada hore Soomaaliyeed waxay tijaabiyeen eray kasta oo kutubta ku qoran inay tarjamo saxiix oo Soomaaliyeed u helaan eray Soomaaliyeed oo u dhigma inay heli karaan naxwo ha noqdo usul الفقه ha noqdo mustalah الحديث ha noqdo fiqh ha noqdo tafsiir ha noqdo mantiq ha noqdo waxay cilmi dhigi jireen oo dhan waxay ku dadaaleen inay sameeyaan tarjamada qaybo badan oo kamid mustalahaat bay markii dambe noqotay eray bixin maadaama eray bixin noqotay waxa ay sheegaysaa in afki batay
waayo eray bixintu dee waa eray luqadii caadiga ahaa macno ku lahayo macno labaad la huwiyo la geliyey marka wuu batay waa macnihii erayadaa la ballaadhiyey qolada labaad ee aan rumaysanay inay afka badiyeen ee hore waa wariyeyaashii soomaaliyeed hore idaacaddii raadiyo hargeysa raadiyo muqdisho b b c london kuwaasi warbaahintii soomaaliyeed hore ee af soomaaliga ku hadlaysay waxaa loo dhiibi jiray waraaqo afaf kale ku qoran inta badan ingiriisi ama talyaani ama wax la nooca ku qoran dabeetana waxay samayn jireen tarjama fawriya isagoo counterka fadhiya ayuu warqadda hortiisa taale af ingiriisiga ku qoran tarjamo fawriya ku samaynayay bal isagoo warka ku jira ayaa war cusub soo dhacaya isagoo qoran oo waraaqa loo dhiibaya isagoo kii hore wada war uu soo akhriyay maaha tarjamo fawriya oo isla markaas aan istaagay buu samaynaya waxay isku dayeen erayada warbaahintu dhammaanteed ay isticmaashay inay Soomaaliyeeyaan walidaalika way af Soomaaliga ballaadhiyeen oo aad u tiro badiyeen waxyaabahan aadka wala cajabay waxa ka mid ah maalin baa Cabdilaahi Xaaji iyo dalmar iyo iyadoo laga warramayo af Soomaaliga waa kan iyo Cabdilaahi Xaaji wuxuu yidhi erayadii nagu adkaaday tarjamkeeda waxa ka mid ahaa erayga violence buu yidhi al-unf waxaanu af Soomaaliga ku odhan lahayn dalmarkani ag fadhiya wuxuu yidhi gacanka hadal aan idhaahno eray gacanka hadal la yidhaahdo af Soomaaliga kuma jirin laakiin dalmar baa soo kordhiyey dalmar baa wuxuu keenay gacanka hadal in la yidhaahdo oo loo adeegsado cunfiga idan warbaahintii hore Soomaaliyeed waxay isku dayday luqada Soomaaliyeed in luqa cilmiye ka dhigto oo ah waxay saxaafadu eray isticmaasho oo dhan inay u tarjumaan af Soomaali qofka Soomaaliyeed uu si fudud u fahmi karayo idan way ballaadhiyeen luqadii Soomaaliyeed qaybta saddexaad ee aanu haystay in af Soomaaliga ballaadhiyeen waa macallimiintii Soomaaliyeed ee tarjamay iskuuladii Soomaaliyeed wixii lagu dhiganayay markii af Soomaaliga la qoray oo dawladdii Siyaad Barre ay qortay waxa la go'aansaday in dugsi hoose ilaa iyo dhexe af Soomaali uu noqdo waxbarashadu dhammaanteed waxa lagu tarjumay af Soomaali syllabuskii yaalay oo dhan macallimiinta tarjamada samaysay tarjama raaqiya waxay sameeyeen tarjumaad aad u sarreysa aad u xiiso badan iyana luqadii Soomaaliyeed way ballaadhiyeen way waxay ku soo kordhiyeen intaas oo af marka la yiraahdo circuit waa mareegtu qol iyo mareegda xoolaha lagu xidhan jiray maqasha marka la lisayo idaha meesha lagaga xidho ayaa mareegtu ahayd qoolashuna ka yar markay yiraahdeen circuitiska mareeg iyo qoolal ay keenaan waxa ay sheegaysaa waa qoolka eraygii la odhan jiro macno kale la huuyay that means af Soomaaliga baa la ballaaray waxaan uga jeedaa inaan idin tusiyo af cilmiye ma jiro af ingiriisiguna kama cilmi badnaa afafka kale laakiin afku marka dadkiisu ay inta isticmaalaan cilmiga geliyaan ee wax ku dhigaan ee iyagu aqoon yeeshaan ayuu afkuna kobcaa sida awgeed ma jirto ummad tidhi keen uu ka yariyay cilmiga aan ka kala qaadana af Jabaanis xagee lagaga hadlaa Jabaan unde meel kale dunida lagaga hadlaad garanaysaa laakiin af Jabaanisku cilmiga dunida oo dhan maanta wuu sidaa bale way hogaaminayaan waayo dadkoodii baa go'aansaday inay afkooda ku qoraan maxay aqoontooda sadaradeed baa waxaan leenahay 500 ee jaamacadood ee dunida ugu sarreysa oo 35 dawladood ku taala ayay waxay leeyihiin dhammaantood waxay wax ku dhigaan afkooda ku dhigaan haddaba af cilmiye ma jiro dadka badba waa istahday inuu ingiriisiga iyo finishka baranay inuu cilmi bartay ninku af Soomaaligu say inuu yahay wax de odayaal reer miyiga oo xagga degani gala raaca ay ku hadlaan sida ogeed ciddii awoodi kari weyda inay afkeeda wax ku dhigto dhaqankeeda ku gudbiso dhasheeda ku tababarto cid kale u awooda inay afafkooda wax u dhigaan dhaqankooda bedelaan dadkooda tababaraan Soomaalida qalbigeeda cadeeyaan inagu waxaan rabnaa inagoo diirka ka madow inaynu maxay xagee ka cadaano wuxuu isma doorin gaalkaan diriyo
daarta kii koraya dusha midabka digilka aduu wuxuu leeyahay uun muuqaalka sare Soomaaliyeed moodaa misna laguma diirsaday qalbigu waa dirkii kaarale buu kaaralku waa gaalkii ugu dambeeyay Ingiriis ee meesha ka tagaa dad badan oo inaga midabaad moodaa inuu yahay qalbigu dirkii kaarale inuu yahay kiisana ka sii cararaya ku kalena ku cararaya haddaba waxay leenahay af inuu noolaado afafku way dhintaan bal United Nations waxay leeyihiin 3 jiil gudahood waxa laga baqayaa nus kamida afafka dunidu inay dhintaan maca dalik waxay leeyihiin afafka nool maanta 96% oo kamida 4% of the population of the world ba ku hadla 96% languages ka maanta dunida yaala luqadka maanta yaala 4% ba ku hadla luqadku way dhimanayaan imika way sii dhimanayaan qola luqadkoodu sii faafaysa laakiin inagaaba rabna inaynu aasno intaan cid kaleba inoogu iman inaynu hore u dhinsiino hore u dhinto hore meesha uga baxo inaga dadaalkeeda ku jira haddaba waxaan leeyahay haddii la rabo in af noolaado oo aanu dhimanin shayga koowaad ee loo baahan yahay waxa weeyaan inuu afku agteena qiimo ku yeesho inaynu fahamno afku inuu qiimo leeyahay inuu yahay hiddahaagii dhaqankaagii sido diintaadii sido aragtidaada sido waxaad ku faanaysaa oo dhan sido baadisooc iyo summad uu ku yahay waxa lagugu garta uu yahay inaad afka u garato haddaan sidaa u fahmo waxay noqonaysaa inaan ku dadaalayo inaanu afkaygu lumin dad yowgii afkooda ku dadaalay tusaale aan idin siiyo yuhuud dunida dacalladeeday ku noolaayeen iyagoo minority groups kadib dhul bay boobeenoo qaateen laakiin iyagoo shataat oo dunida ka yimi bay waxay go'aansadeen afkoodii dhowr kunoo sannadood dadba ugu dambaysay ee dunida meel lagaga hadlaaba aanu jirin inay dib u nooleeyaan intay nooleeyeen bay ka dhigeen af cilmiyo ilaa jaamacad lagaga baxo af dawlad lagu maamulo dawlad ku socoto af khubarada dunidu ay cilmi baadhis ku soo saaraan oo wax cusub lagu qoro af kamida afafka maanta technology-ga uu ku qoran yahay laakiin yaa ka dhigay dadkii lahaabaa ka dhigay 5 milyan oo dad oo meel degan ayaa afkoodii intay god ka soo saareen geeyey stage in PhD degrees lagu sameeyo oo ay fannin aad u baahato aad ku qorayso oo luqo dawlad iyo raadiyo iyo TV iyo shaneemo iyo wax waliba uu ku hadasho uu noqdo idan afku waxay yiraahdaan afafka dunidu 3 qaybood bay u qaybiyaan waxay yiraahdaan luqa munqarida waa afafka dhimanaya luqa dabar gooday iyo mid mutaakila bay yiraahdaan mid imika sii googo'aysa iyo mid muhtadara geeridu saaran tahay inaga teenu mutaakilkii bay hadda ku jirtaa way sii cunmaysaa way sii bedelmaysaa haddaba ayuha alahibba 19 dawladood bay yiraahdaan maanta dunida technology-gooda hogaamiya 19 kuba afkooday ku hogaamiyaan bay yiraahdaan waa 19th country the most industrialized country in the world 19 wadan bay yiraahdaan ee industry iyo technology iyo taqniyo maanta dunida ku hogaamiya 19 kuba afkooday wax ku dhigaan baa la yiraahdaa buxuusta cilmigaana luqadkooda lagu sameeyaa sida awgeed waxaynu u baahannahay inaynu dib u noqonno caalim lugawiyaat laba caalim oo baaxithoo luqada dadka linguisticska baadha Lambert iyo Bill la yiraahdo ayaa Canada Montreal ayay ku sameeyeen baaritaan majmuuca min al-atfal bay sameeyeen 10 jir ah group ay laba luqo wada yaqaaniin Faransiiska iyo Ingiriisiga groupna ay hal luqo wax ku bartaan hal luqo quray wax ku bartaan dabeetana waxay dhaayeen nataa'ijtii ka soo baxday waxa weeyaan groupkii labada af wax ku baranayay ayaa tacliinta iyo fikirkaba waxay ka sareeyaan bay leeyihiin groupkii halka luqo wax lagu barayay baxfigooda waxay ku gabagabaynayaan inay muhiim u tahay dadku afkiisa hooye inuu wax ku barto ta kalena inay u ahaato maxay luqad dheeraad oo bartay laba luqo inuu yeesho
haddaba afkii dadkiisu ilaalin waayaan wuu dhintaa. intaa waxaan uga dan lahaa inaan marka hore idin tilmaamo afku muxuu qiimo inoo leeyahay. waayo afka carruurta baraya haddaan idhaahdo asaydan rumaysnayn ba inuu qiimo leeyahay, wax macno samaynaya inuu yahay aydan rumaysnayn, dee bari maysaan. hadduu lumana waxa u aragtaan iska daa, waa wax badan maahe. hooyaday baa sariirta taalla hadduu yidhaahdo waa iska af soomaaliyana u aragtaan say loox tahay meel la dhigay. afku waxaynu leenahay haddaba waa nicmadaasi keensanaysa wixii iga guuxayay maanta way hor fadhidaan. wax badan oo iga guuxaya dareenkayga waxaan idinku soo gudbiyey ee dadka kale uga imi waa xidhiidhka inaga dhexeeya luqeed. waxaan macaawa maantaba idin hor fadhiya waa xidhiidhka afa inaga dhexeeyaba wuxuu keensaday wixii madaxayga ka guuxayey ama kombiyuutarkayga yar ku dhex jiray inaan isku dayo inaan soo guuriyo oo idin soo gaadhsiiyo. afku waa cod, dabeetana cod xarfaa, kadibna kelimaad sameeya, kadibna tarkiib sentenis weedho sameeya. afka waxyaabaha iyo dalaalaadka macjamiga ama macnaha lugawiga oo afku uu leeyahay, afku inaanu lumin waxyaabaha ilaaliya ugu xooggan waxaa ka mid ah oo soomaalidana barashadiisa ku yar naxwaha. formal language waxa language ka dhiga maanta luqada ingiriis intaasoo dialect iyo intaasoo waxoo lagu hadlaabay laakiin marka qoraal iyo waraaq tagto si qura loo qoraa. haddaad sida aanad u soo qorin waraaqdaadu waa marfuud, af ingiriisi kuma qoraa lagu leeyahay, academicalina jaamacadda laga aqbali maayo. ama markaad hadlayso waxaad doontaabaad jacburin kartaa, dialectka doontaabaad ku hadli kartaa, kii hindidaad duldali kartaa, ka dadka madoobaad akhriyi kartaa, waxaad doontaad sheegi kartaa. afku inaanu baabi'in waxa ilaaliya ee formal ka dhiga, formal language waxa ka dhiga waa grammarka. waa inuu leeyahay luqadu grammar inay leedahay. innagu saliiqa baynu lahayn baadiyaha luqa taalay saxiixa oo dadku ay kala bartaan oo caadiya, laakiin markaynu dabadda uga soo baxnay wuu walaaqma. maanta saddexdii qole aan idin lahaa afka ilaaliyeen, qola meesha way ka baxday oo macallimiintii luqa soomaaliya wax ku dhigayey meesha way ka baxeen. labada qole kalena dadka afka dilayay ka mid yihiin. wadaadadu aan run idin sheego, wadaadada dambe inta badan luqa carbeed iyo luqaad kale wax lagu soo bartay, tarjamo saxiixa lama baranin, laqabaha waxay culammadii hore u bixiyeen lama qabanin. saa awgeed wadaadka dambe wuxuu u badan yahay qolada booshaaqa ku hadasha, af carabi la soomaaliyeeyo mid kale lagu dhex daray. dee anigaa idin hor fadhiyaa eele war afka ha la barto, markaan is idhahdo war malaa garan weydo in carabi iyo in ingiriis yaan idinku daraa, bal inna waxaan sheegayaa inay idin gaadhaan waa qaban kartaa. warbaahintana iyada hadalkeeda wadaaho qolada dishay afkay maanta ka mid waxaan yarra websaytada lagu qoro, idaacadahan hadla, waxaan hadla ma aha luqa soomaaliyeed oo saxiixa intooda badan. xataa qaabkay wadaan qaab laga naxo weeyaan, markay af tagto waa wax laga naxo. sida awgeed dadka maanta waxaad mooddaa afkeennu inuu muta'aakil yahay, inay dhimashadu ku socoto. haddaba ayuha alikhwa, af soomaaliga markaan u soo gudbo iyo ilmaha oo deriskeenii ahaa, ilmuhu marka uu yar yahay waxa uu bilaabaa dee afku waa wixii uu baahidiisa iyo fikraddiisa iyo dareenkiisa iyo hogotiskiisaba inugula xidhiidhi lahaa ayaa af ah. haddaba ilmuhu marka koowaad wuxuu bilaabaa waxay yidhaahdaan alaswaat alwujdaaniya, luqada jidhka. oo marka uu dhasho afka ugu badane uu ku hadlo horta luqaadka qaarkood bini aadamku wuu wada wadaagaa. qofka haddaad ka naxiso timaha istaaga, indhaha ama waaweynaada ama yaraada, waa dhididaa,
ilmuhu hadduu talyaani iyo hadduu soomaali yahay oo laga nixiyo noocaas oo kale wuu noqonayaa laakiin luqadiisa koowaad waa oohin hadduu baahdo wuu ooyi hadduu meesha naco wuu ooyi hadduu rabo in la qaado wuu ooyi waa that language buu marka koowaad yaqaanaa inuu ooyo bes marka uu farxana wuu qosli qosol iyo oohin ayaa noo iyo yees u joogta waxbaan doonayaa iyo waxbaan diidayaa u ah kadib uu ilmuhu wuxuu bilaabaa waxay ku tilmaamaan alaswaat almubhama codadka aan la fahmaynin oo waxay leeyihiin wuxuu bilaabaa inuu carabka iyo xanjarada iyo waxaan tajriba tababar buu bilaabaa deetana uu qayliyaa codod buu sameeyaa aan macno adiga agtaada ka samaynaynin isna bay leeyihiin aan macno badan u samaynaynin laakiin habay leeyihiin inuu bilaabayo nutqiga inuu barto oo tijaabiyo kadibna wuxuu bilaabaa muddo markuu joogo wuxuu bilaabaa inuu erayada fahmi karo laakiin aanu soo celin karin wuu ku fahmayaa waxaad kula hadlaysaa wuu garanayaa waad la hadlaysaa waad u qoslaysaa wuu kuu qoslayaa laakiin kulama hadli karayo wuu kuu jawaabayaa laakiin kulama hadli karayo fahamkaa bilaabmay wuu ku fahmayaa waxaad sheegayso laakiin kuuma jawaabayo wakhti markuu soo gaadho wuxuu bilaabayaa inuu eraya yidhaahdo kooban oo makhaarijta qaar ka qaldan tahay meelihii xarafka uu ka soo baxayaa qaldan laakiin wuu isku dayayaa markaasi erayada hooyadunbaa fahamta dadka kale inta badan ma fahmo waxaasuu doonayaa siiya bay tidhaha ama waxaasuu yidhi siiya wuu hadlayaa laakiin hadalkiisa cid kale ma garanayso wuu soo wadayaa jumal ma odhanaya erayo kaamiluu odhanaya caano buu ku leeyahay caanuu doonayaa laakiin waxba kale ku dari maaya caanuu leeyahay wuu erayuu baranayaa waxay yidhaahdaan marka uu yahay wakhtigaasi ee sanawaadkaas uu soo gaadho 2 jir markuu soo gaadho almost ayuu hadalka caadigaa soo bilaabaa wuxuu wakhtigaa haystaa bay yidhaahdaan ilaa 900 oo eray ayuu sanadkiisa saddexaad garanayaa bay yidhaahdaan 900 ilaa 1500 oo eray sanadka afraad markuu gaadhana ilaa 2500 oo eray buu garanayaa bay yidhaahdaan dabeetana erayadu way soo biiraan 4 jir ilaa 6 jir markuu joogo isagoo 2500 oo eray garanaya waa markaynu dugsiga iyo ku bilowno quraanka iyo waxbarashada aynu ku bilowno oo uu afka soo bartay koritaanka afku wuxuu socdaa bay yidhaahdaan inta badan ilaa iyo 12 jirkiisa 6 jir ilaa 12 jir weli afkiisu wuu koraya furuqaad fardi waa jiraan oo dadku waa kala yara intelligence yahay ragga iyo dumarku waa kala horbaran yihiin afka waa kala horbaran ogyihiin waxyaabo noocaas oo u dhaxeeya baa jira laakiin waxaynu leenahay ilmuhu meesha uu afka ka bartaa waa guriga waxaynu u baahannahay gurigeennu inaan af Soomaali waxaan ahayn lagaga hadal af Soomaali waxaan ahayn inaad guriga kaga hadal ilmaha markaad adigu wuxuu sheegaysaa inaad af Soomaali ugu sheegtid isagu markuu wax kuu sheegayo inaad ogolaato in af Soomaali kuugu sheego aad se dhegaysato xataa hadduu jajabinayo u dulqaaday ha ku qoslin meesha saxiis u baahan aad sixi karto sax laakiin ogolow inaad dhegaysato waayo qofku haddaanu practice badan samaynin afku wuu ka lumaya ilmaha waxaan ku soo gebagabaynayaa leeyahay luqadiisu 12 sano ugu horeeyay inta badan kaamil noqota 12 sano ugu horeeya ayay inta badan kaamil noqota 6 jir inta ka horeeyana rasmiyaadkeedu qabtaa haddaba qofkii raba inuu ka baxo Soomaalinimada qofkii raba inuu ka baxo Soomaalinimada oo cid kale ku biiro dee kaasi waa go'aan kale qofkiisa raba inuu Soomaali sii ahaado isaga iyo ilmihiisu
waxaan leeyahay identity-gaaga koowaad ee lagaa rabay inaanad lumini waa af Soomaali hadduu af Soomaaliga si fiican u bartana afka labaadna si fiican buu u sugayaa weliba tacliintiisa waxbarashada saa akademiga buxuusta ay tilmaamayso uu ku fiicnaanaya si wanaagsan ayuu wax u baran karayaa hadduu afkaa lumiyo wuxuu lumiyey dhaqan iyo taariikh iyo hidde iyo sawrac iyo summad ummadi lahayd wuxuu ka baxay identity-ga dhammaantii uu ka baxay saynu xagga waraaqaha ugaga baxnay ayuu dhab ahaan uga baxay oo cid kale oo aan la identity ahayn buu ku biiray haddaba ugu dambayn afku waxaan idin leeyahay waana af muslim markaan leeyahay mustalaxaadkiisa eray bixintiisa waxaa ka buuxda diin haddaad maanta istidhaahdo afka qoladan diin ku sharax garanba maysid dadka waxaad ugu sheegto haddii la yidhahdo science ku sharax waad ku sharxi karaysaa waayo uu ku qoran yahay eray bixintiisa iyo wixiisii waad helaysaa laakiin terminologigii diineeda islaameed heli maysid waayo dadkan muslimiin maaha si af Soomaaligu waa af muslim waa af sida islaamku wuxuu ahaayoo dhan qofka muslimka ah Soomaaliga erayada diineed ee loo sheegaya af Soomaaligiisa ku biiray ee kuwa ku batay kamid ah af Carabi ciidaasi ka badan yahay waxaan ku soo koobayaa markaa anigu ma ahayn nin linguisti ah oo cilmiga luqadka bartay waa idin buhabuheeyo wuxuun baan rabay inaan idhaahdo warafku waa wax weyne iyo idinka lumay wassalaamu calaykum waraxmat ullah